qofkan waa la kari waay fahanteen asxaatayna yaa qeydawada iska yaranaya wanaagaha way u saseen dabada weyn ay kurseeyeen iyo wad sheekada bal oo noo wad bal sheekada khafaslinka wata baa iska helisid xaq gabdhaha masaakiinta gabdhaha dabada laftaada ma jeeda ilaahay idin naxar ana kooga namha soo hay ayuubina gabdho ma sha Allah ilaahay ku daayo 5 sida la wada og yahay dhaqaxumada lagu bartay gabadhan ama ee dhanka social media ay ku soo baahayso dhankaas oo TikTok oo ku soo shacbaxday ama dhankaas ay badana ay ku soo wada galaan iyada iyo gabdho aad u fara badan laakiin boqolkiiba boqol waxa la marsiyay ama waajibkii ay mudnaan in badan boqolkiiba boqol ayaa la isdhigi karaa sababtay tahay waxyaabo ay dhaqaxumada ay ku soo baahinayso dhankaas iyo social media waa wax uu alle raali ka ahayn ama ay bulshada Soomaaliyeed ama waalidkii oo dhalay raali ka ahayn laakiin waxyaabihii ay soo gudbisay ama muuqaalkii ugu dambeeyay iyadoo dhar la'aan ah ama iyadoo dhankeeda iyo musqusha ku qubaysanaysa ay soo duubtay muuqaal waana waxyaabaha just ahaan ee lagu qara zamaankii ama oo soo dhawaaday boqol waxaan leenahay keep going oo hor u soco in badan wax badan baa ku sii dhaman sababtay tahay hadii intaas ay bilowday ama dhaqaxumadaas ay just know ee waqti xaadirkan ay bilowday wax ay soo wado ayaa ka badan boqolkiiba boqol keep going ayaan ku sii leenahay sababtay tahay qofkii uu og yahay in oo just ahaan waxan uu ku qaldan yahay ama qalad badan uu ku leeyahay sababtoo tahay uu alla raali ka heen ama uu waalidka raali ka heen laakiin ay just ahaan waxaan shakhsi ahaantaada ama nolol ahaantaada ee noloshaada dambe ama ayahaaga dambe ay dhibaato aad u far badan ay u geysan doonto shakhsiyadaada taas oo ka dharagsan in badan ay just ahaan waxay soo gudbinaysaa ama ay dhanka social media ku soo baahinaysaa muuqaaladaas dhaqanka aad ku xun ama qof walba uu ka naxayo waxaan ani ahaan aad ula sii yaabay lama dhalamiya walaal lama dhalamiya gabadho oo ishto ama shakhsi ahaanteeda wax u sheego ama waaniyo waxyaabaha aad iga sii yaabiyo waxa waaye marna waxay soo duubaysaa wacdi ama just ahaan dhankeeda ahaan ama dhankeeda social media mar waxay ku soo baahinaysaa iyadoo dhankaas iyo kitaab qur'aan ay gacanta ku wadato marna sidan ay ku soo baahinaysaa waana wax aad loola yaabo ama bulshada Soomaaliyeed ay la yaabeen laakiin waxa ka sii darnaaday ama la yaab buuxda ku sii la yaab kale ku sii noqday markii ay soo duubtay iyadoo oo wax dhara ama wax shakhsiyan aan wadan ay dhankaas iyo social media ay ku soo baahisay dhaqaxumada ugu la yaabka badneed oo dhankaas iyo social media soo baahiyo oo sanadihii dambe waxa aad u soo shaabaxayay gabdho ama dumar saa u taqaanaba iyagoo qubaysanaya ama just ahaan dhankooda in ay muuqaalo iska soo duubayaan ay dhankaas iyo social media ay ku soo baahinayaan